بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka mudane Cabdullaahi Cali Xasan wasiirada dawlad goboleedyada xubnaha ka dawladda federaalka iyo marti sharaf kale bay dhamaantii waan salaamayaa halka waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirkeena waxaan leenahay ku soo dhawow caasimadda Puntland Garowe waan ku faraxsanahay inaad noo timaadid runtiina adiga iyo wasiirada kale iyo xubnaha kale gobolada ka yimidba farxad weyn bay noo tahay inaan ku soo dhaweyno Puntland shirka inoo furmi doono maantana ay kaga hadli doono xeerka ganacsigana wuxuu inoo noqon doonaa shir aad muhiim u ah oo aynu ku lafaguri doono xeerkaas wada shaqaynta iyo isbarashada iyo aad muhiim inoogu tahay waana ku faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad baa soo dhaweyntiina iyo imaatinkiina haddana waxaan ku soo dhaweynayaa inuu kelmad noo yiraahdo wasiir Cabdullaahi wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha dawladda federaalka wasiir ku soo dhawow dhammaan madaxda sharafta leh ee halkan isugu timid uu hogaaminayo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dawlad goboleedka Puntland mudane Cabdullaahi wasiirada dawlad goboleedyada ee ganacsiga madaxda wasaaradaha iyo xubnaha kale ee ka socda wasaaradaha ganacsiga ee dawlad goboleedyada Soomaaliyeed runtii sharaf weyn ay ii tahay iyo farxad iyo rayn maanta inaan soo booqdo magaalo madaxda dawlad goboleedka Puntland ee Garowe runtii aad aan ugu faraxsanahay waxaan mahad ballaaran u celinayaa dhammaan madaxda sharafta leh ee halkan ugu soo dhaweysay oo ugu horeeyo wasiir Cabdullaahi iyo wasiirada kale ee dawlad goboleedyada iyo agaasimayaasha iyo madaxda wasaaradaha iyo maamul goboleedyada dhammaan waxaan kaloo mahad celinayaa bahda saxaafadda iyaduna halkan goobjoog ah runtii waxaan idinkaga mahad celinayaa soo dhaweynta iyo sida sharafta leh alxamdulillah lagu soo dhaweeyay magaaladan dawlad goboleedka Puntland magaalo madaxdeeda Garowe oo runtii aan ahayn markii ugu horeysay aan imaado oo aan marar badan aan halkan markii ugu dambeysay aan joogay markii la calaamad saarayay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ay ugu dambeysay laakiin hadda aniga wasiir waa markii ugu horeysay oo halkan aan soo booqdo runtii ahmiyadda weyn ay leedahay maanta safarka halkan u mid oo ah safar shaqo waxa weeye waa ahmiyad ballaaran ayuu u leeyahay waddankeena waxaan halkan isugu nimid sharcigii shirkadaha gaar ahaaneed shirkadaha Soomaaliyeed oo runtii soo maray marxalado kala duwan runtii ah sharci ahmiyad weyn u leh kobcinta iyo ganacsiga Soomaaliya oo ahmiyad weyn u leh in Soomaaliya ay la jaan qaado caalamka oo ahmiyad weyn u leh maamulka iyo diiwaangelinta iyo dhismaha shirkadaha Soomaaliyeed oo aan dhihi karo waa sharciga xagga muhiimadda waa sharciga koowaad inkastoo uu ka horeeyay sharciga maalgashiga runtii halkaas sharcigaani muddo 2 sano ah ayuu soo socday diyaarintiisii oo wasaaradda ganacsiga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan iyo ganacsatada Soomaaliyeed oo ay ku jirto rugta ganacsiga iyo muxuu ahaa dhammaan qaybaha ay qusayso iyo sharci yaqaano iyo intaba ay muxuu ahaa iyo dawlad goboleedyadu ay dhammaantood ay qayb libaax leh ay ka qaadanayeen runtii wuxuu soo maray aqalka hoose baarlamaanka kadibna waxaa loo gudbiyay aqalka sare haddana maanta waxaan halkan isugu nimid inaan loo soo gudbiyo wasaaradihii ganacsiga iyo madaxdii dawlad goboleedyada runtii oo horena ugu lahaa contribution iyo input fara badan in dhammaanteen halkan aan alxamdulillah waa tashi ugu dambeeyay aan ku galno kadibna aqalka sare aan u gudbino siduu u ansixiyo kadibna xeerkaasi uu noqdo ama sharcigaasi uu noqdo sharci dhaqangala marka hawl ayaa noo taalo marka runtii aad ayay muxuu ahaa ayaan u rajaynayaa
in safarkeenna iyo dhammaanteen hawsha aan halkan ku joogno inay noogu dhammaan doonto si miro dhala oo ayna ka soo bixi doonaan wax ay u aayaan ummadda Soomaaliyeed maadaama uu yahay dalkeenu uu yahay dal ganacsigu uu xor yahay oo dalka ganacsiguna yahay muhiimadda koowaad u leeyahay dalka marka runtii aad ayaan mar labaad idinku mahad celinayaa halkan sida wanaagsaneed oo igu soo dhaweyseen oo aadan u kala harina madaxdiina dhammaantiin marka wasiir Cabdullaahi ugu horeeyo hogaamintiisa runtii wax badan ayaan xataa maamul ahaan iyo dawlad goboleed ahaan iyo maamulkii federaalka halka maadaama aan ku wada sugannahay ayaan kulli isku arki doonaa insha Allah shirkuna waa noo bilaaban doonaa biidnillaahi alkariim waxaan ka cudurdaarnayaa inay ahayd shalay inaan idin imaado laakiin hawlo shaqo ogood ayaan dib ugu dhacay marka maanta waxaan rajaynayaa insha Allah shalay wixii aan qorshe noo ahaa inaan qabanno iyo tan maantaba inta inaan isku darno iyo bariba insha Allah haday noo suura gasho marka aad u mahadsantiin dhammaantiin waan idin mahad celinayaa